waxaan salaamaynaa dhammaan ciidanka asluubta meel kasta uu joogo maanta yaan salaamaynaa saraakiishiisii saraakiil xigeenkiisii dableydiisii iyo xaasaskiisa iyo meel kasta ay ku nool yihiin maanta salaam baan gaarsiinaynaa ciidanka asluubta markaan nidhaaha marka maanta waxay meelo badan ka xusaayaan xuska 52 oo ciidanka asluubta waxay meelo badan ka xusaayaan goobo badan oo ciidanka asluubta u degan boosaaso waxaa la yiraahdaa meesha la yiraahdo boosaaso waxaad ii sheegtaa dhuusamareeb waxaa kaloo ii sheegtaa beledweyne waxaa kaloo ii sheegtaa meesha la yiraahdo doolow baydhabo banaadir intaba waxay ka xusaayaan maanta konton guurada 52 ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka asluubta ciidan waxaan nahay ciidamada dalka yaan ka mid nahay ciidamada qarankaan ka mid nahay 4 ciidan baan ka midna wixii ciidan laga rabo oo dalku uu ka rabaan annagana yaa nagala rabaa hadday tahay difaaca ummadda iyo qaranka iyo dalka iyo hadday tahay ilaalinta dadka aan gacanta ku hayno iyo hadday tahay korinta dadka tabaalaysan oo ciyaalka yaryarka ah sida kuwaan hadda naga soo horjeedo oo kale intaba waa waxyaabaha nagala rabo annaga aan iska leenahay waay maadaama na liidi ciidanka asluubta innaga iska leh kuwaan annaga leh shalay say ahaayeen waad ogeydeen markaan halkaan keennay maantana siday yihiin waad arkaysaa waana yar yihiin waa badinaynaa da'daan oo kale wixii oo magaalada ku jirana waa aruurinaynaa waana badinaynaa ilaahay idankii waana fiicnaanayaan mana dhibaatoon doonaan innaga maxaa nagala rabaa marka annaga ciidanimaa nagala rabaa waana ku mahadsantihiin sida aad maaragtay noo qabanqaabiseen saraakiisha oo qaabka aad noo dhisteen aad baan kugu mahadnaqayaa ciidanimaa nagala rabaa dadaal ciidan baa nagala rabaa diyaar garow waa nagala rabaa cadowga waa idinka arkay xogaa waxaad moodaa siyaasadda xaggeeda iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo daba jeesteen cadowga dalka waa naga soo daba jeesteenoo waxaad moodaa inay shaqadoodii kordhiyeen innagana waxaana looga baahan yahay inaan taanada kordhinno difaac iyaga inaan kordhinno ilaalinta cadowga inaan kordhinno xogtiisa raadinteeda inaan kordhinno meel allaali iyo meeshii mataqaanaa yacni na loogu talagalay oo dhan inaan difaaca adkayno iskana ilaalinno ayaa loo baahan yahay tanteeda kalena ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo annagoo sida tan u badqabno u nabad qabno allah ha nagu gaarsiiyo intaa waxaa ii dheer nimanku waxay soo sheegteen inay annaga noo yimaadaan waa ku celcelinaynaa warka asiga ah inayna soo salaamaan bay sheegteen waa ula ekoonaatay macni inayna soo salaamaan annagana sidaan ku salaami lahayn waa inaan semberi diyaar u nahay jiljilaac waa inuusan jirin haddee ninkii ku soo aado meeshii lagugu ogaa ay gurigaaga kuugu yimaado inaad la waraysatuu kaa rabaa la waraysigaas aan u diyaar garowno darajo kasta wada oo ciidanka asluubta aan u diyaar garowno qorraxaa la taagan yahay xaloo dhan baa la soo jeeday la taagnaa waxaan ku dadaalaynaa in aan wakhtigu soo yarayno inkastoo qolyihii garsoorka hadda ay nagu soo biireen oo kuwii qoladii ciidamada ay nagu soo biireen wakhtiguna waa iska yaryahay waa soo gaabin doonnaa waxaa la inka rabaa marka oo nalooga baahan yahay si kalsooni leh wada shaqayn leh kalsooni leh wada shaqayn leh ciidannimo leh inaan u difaacno dalkannaga iyo dadkannaga iyo wixii nagula ogaa oo aan garanayno maalin hore waxaan ku hadlay kelmaddii ahayd hadda ka bacdi ma dhahayna nimanka magacii hore maxabiis ma dhahayna ardaydii xabsiga joogtay aan dhahayna ka tagi mayna wasiir gudoomiye soo dhawow ka tagi mayna kelmadihii ayaga ahaa
ده أرضي ماشي جوكتين شغادي نقول أجان إن قبنا والله بهاي هاي هذا لما هارين نينكي يقول ريا أخريي تلي حقين كوبات وحان كوري جندونا هدي إلهي رهدو وزير قدوميه نقص بيري محكمة ده الدنيا الشرع كما مارن أنا عسكرنا